السلام الله عليكم akhyaarta sharafta iyo qiimaha u saaxiibka wararkii ciyaarahana waxaa ka mid ah kooxaha Chelsea, Arsenal iyo Liverpool ayaa guula gaadhay. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa guul soo laabasho leh waxay ka gaadhay kooxda Norwich City kaasoo gool kala hormartay, waxayna 6 dhibcood u soo tirsadeen kooxda koobka daafacaysa ee Manchester City kaasoo haddeer ciyaari doonta lana ciyaaraysa kooxda Tottenham. 3 gool oo aad u kala qurux badnaa oo ay kala dhaliyeen Mohamed Salah, Mane iyo Luis Diaz ayaana kooxda kubadda cagta Liverpool u sahlay guushan inay ka gaadho 3 dhibcoodna ay ka soo qaadato. Daba kooxdan qarka ka sii laalaada ee halista ugu jirta inay u noqoto division ayaa markii hore ciyaarta waxay ku soo gashay dardar taasoo ay doonayeen inay ugu yaraan 1 dhibic ay helaan, laakiin kooxaha yaryar aan u tulinay manaxayaasha ah ee Liverpool ayaa haddaba waxay 3 gool ugu bedeshay gool ay dhaliyeen. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa waxa kubadda badan iska khasaariyay kuwaasoo aan ka faa'iideysan kubadda ay ay goolka Norwich City ku bartilmaameedsadeen. Haddaba daqiiqadii 48 ayaa Liverpool waxa laga naxsaday goolkana waxa dhaliyay Rashika ku sii dhacday Matip kaasoo isaguna ku leexiyay goolkii uu waardiyaha ka hayay Alisson. Qadii 64 ayaa haddaba goolka barbaraha waxa uu keenay wiilka heer Senegal ee Sadio Mane kaasoo gool aan caadi inaba ahayn u dhaliyay kooxdiisa Liverpool, isagoo aad moodaysid sida hangaraar casuur rogaya ayuu gool ka dhaliyay kooxda Norwich City. Ahaa gool aad u qurux badan goolkaasi. 3 daqiiqado kadibna waxa goolka kale u dhaliyay Mohamed Salah wiilka heer Masar kaasoo kubad uu soo tuuray goolhayaha Alisson ayaana goolka ka shaqeeyay, isaga ayaana caawintiisa lahaa. goolkana waxa u dhaliyay Mohamed Salah. Mohamed Salah oo kubadda ku xaragoonaya ayaa isagoo wuxuu u sii jaray goolkiibaha Norwich City isagoo daafacyada Norwich City meel khaldan u diray. goolkana waxa ku hubsaday waa gool magafaha Mohamed Salah ninka heer Masar, ninkaas caadi maaha ayaa isaguna saa goolka labaad ugu dhaliyay kooxda Liverpool. goolka saddexaad si raacsaday waa ciyaaryahanka heer Colombia Luis Diaz kaasoo ku cusub xil ciyaareedka Liverpool, wuxuuna isku qoray diiwaanka Liverpool ee gool dhalinta isagoo u dhaliyay gool, waxayna ciyaarta ka harsanay 9 daqiiqo oo kaliya dhamaadka ciyaarta. haddaba ay Liverpool ka gaadhay kooxda Norwich ayaa waxay uga dhigan tahay guul weyn maadaama ay 6 dhibcood oo kaliya u soo jirsadeen kooxda hoggaanka haysa Manchester City kaasoo caawa la ciyaaraysa kooxda Tottenham. Liverpool ayaa haddaba waxay iska khasaarisay fursado aad u fara badan kaasoo ay kala khasaarayeen Mane iyo Mohamed Salah iyo marka ciyaartana waxay ku soo dhamaatay guul weyn oo ay gaadhay kooxda Liverpool. kale kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa guul ay ku rafaaday waxay ka gaadhay kooxda Crystal Palace kaasoo daqiiqadii 89 waxa goolka u dhaliyay, laakiin Ziyech ayaana goolka u dhaliyay. gool hore uu dhaliyayna waxa ka diiday VAR kaasoo markii hore kaga naxsatay kooxda kubadda cagta Chelsea markii laga daawaday VAR-ta. Offside-ka ku jiray Lukaku. Labada kooxood ayaa waxay ciyaarta half-ka hore waxay isla dhaaf waayeen 0-0 kaasoo labada kooxood ba ismari waayeen. fursado ay heleen kooxda kubadda cagta Chelsea kama ay faa'iideysan. oo kale kooxda Crystal Palace iyaduna sidaas oo kale fursado ay heleen waxa ka khasaariyay ninka la dhaho Saha. kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa iyadu waxay iska khasaarisay fursado waxaana ka khasaariyay kubaddaas daafacooda Antonio Rudiger kaasoo goolkana waxa ku dhacday birta. sidoo kale N'Golo Kante ayaa isagana gool waxa ka joojiyay ama ka daafacay goolkiibaha Crystal Palace. qadii 76 ayaa Chelsea la timi goolka uu dhaliyay Hakim Ziyech, laakiin waxa qabatay oo laga soo hubiyay VAR-ta ayaana goolka diiday maadaama uu Lukaku ku jiray offside. hore ay Hakim Ziyech ay VAR-tu ka diiday goolkii hore, haddana mar labaad ayuu goolkiisii u dhaliyay kooxdiisa Chelsea daqiiqadii 89 isagoo oo guushan u horseeday kooxdiisa Chelsea. bay 3 dhibcood haddaba Chelsea way soo qaadatay. ciyaartaasna waxay ku soo dhamaatay 1-0. kale kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa iyaduna guul ka soo gaadhay kooxda Brentford. gool ay kala dhaliyeen Smith iyo Saka ayaana Arsenal waxay ku heshay guushan iyadoo u soo dhawaaday kaalinta afraad ee horyaalka Premier League.
ayaa iyaduna gool la timi. Ciyaartan ayaa waxay ahayd ciyaar ay inta badan ay kooxda kubadda cagta Arsenal ay gacanta ku haysay oo maxaa la dhahaa ay heleen kooxda kubadda cagta iyo sidoo kale Brentford kama ay faa'iideysan. ciyaartanna waxay kusoo dhamaatay 2-1 oo guushu ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyadoo u soo dhawaatay kaalinta afraad ee kala sarreynta horyaalka Premier League. guul ay u baahnay kooxda kubadda cagta ee Arsenal iyadoo maxaa la dhahaa rajo weyn waxay ka leeyihiin inay u soo baxaan UEFA Champions League waxayna dagaal ugu jiraan kaalinta afraad siday maxaa la dhahaa dagaalkooda dhankooda uga geli lahaayeen. sidoo kale kooxaha West Ham iyo Newcastle ayaa iyaguna waxay kusoo dhamaatay 1-1. dhanka kale Aston Villa iyo Watford ayaa 1-0 ku badisay. sidoo kale kooxda Brighton iyo Burnley ayaa 3 kusoo badisay. kooxda Southampton ayaa iyaduna waxay 2-0 ku garaacday kooxda Everton iyo Lampard iyadoona heshay guul weyn. wararkii ciyaaraha intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. salaamullaahi calaykum meel kastaba aad joogtaan saaxiibayaal wararkii ciyaaraha saacad kasta iyo goor kastaba subscribe-ka iyo like-ta iyo commentiga iyo share-ta iyo intaba saaxiibayaal yaan la isla dhaafin hana moogaan kooxdaadii oo ciyaaraysa.